inaynaan ilaawin shaqadaynu qabanayno bishan dhexdeeda. markuu qofku howlgelaya hawshu waa inay u cayiman tahay si aanu u hallaabin. يا جمعة الأيام يا عيدا لكل المسلمين يا فخر كل الأتقياء يا قهر كل المشركين يا جمعة الأيام يا عيدا لكل المسلمين المسلمين الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaan waxaynu ku jirnaa bishii ramadaan. fursad waxaynu helay inuu ilaahayna soo gaadhsiiyo subxaana wa tacaala, iyadoo dad badanoo walaalaheeni aanay fursad iyo jaanis u helin. cumrigoo ilaahay uu kuu kordhiyo waa deeq uu ku siiyey oo aad kaga faa'iidaysan karayso dhinaca wanaagsan iyo camalka fiican. waayo qofku markuu dhinto waxba lagama qoro, shar iyo khayrtoona looma qoro. kitaabkiisi wuu xidhmay. markaa ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala. waxaynu markaa isku baraarujinaynaa inaynaan ilaawin shaqadaynu qabanayno bishan dhexdeeda. markuu qofku howlgelaya hawshu waa inay u cayiman tahay si aanu u hallaabin, si aanu wakti uga lumin. marka arrimaha aynu bishan dhexdeeda qabanayno ilaa 7 arrimood weeye insha allahu oo waaweyn oo aynu ku dadaalaynaa. ta u horeysaa waxa weeye si aynu u afxidhannahay ilaahay daraadii subxaana wa tacaala. arkaanu islaamkii mid ka mida baynu gudanaynaa oo ah bisha ramadaan oo la soomo. soomka inaan la dhayalsanin, lagu xadgudbin, ciyaar looga tegin ee la ilaaliyo. nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam bushaaru inoo qadimay. xadiid alqudsi buu ilaahay ka warinaya subxaana wa tacaala. ilaahay baa wuxuu ihi qof kasta oo bani aadama camalku qabanayo aniga isagaa iska leh. kullu camal ibni aadama lah. camalka uu qabanaya isagaa iska leh. xasanaadka uu sameeyana ilaahay 10 jeer buu u laabaya, 700 jeer buu usii laablaabaya. xadiidkaasi waxa uu leeyahy ila siyaama fa inahu lii wa ana ajzii bihi. soomka anigaa le anaana ka abaalmarinaya. xadiidka in badan baa maqashin, lakiin waxaynu ugu celinaynaa bushaaru inoo yahay. waa ku farxaynaa, wuu ina dhihri gelinayaa, dareenkeenu kor u soo qaadaya. soomka anigaa le anaana ka abaalmarinaya. waxay sheegaysaa camaladoo dhan ilaahay daraaddii baynu u samaynaaye kani waa camal khaasa oo dheeraad leh oo sir gaara leh oo daacadnimadiisa iyo ikhlaaskiisa aada u sii badan oo nifaaq iyo istusnimada ka dheer. wuxuu ilaahay ku sababeeyey yatruku shahwatahu wa طacaamahu wa sharaabahu min ajli. qofkani wuu go-aan wanaagsan yahay. qofkani ilaahay amarkiisu u heelan yahay. naftiisii buu ka adkaaday. wixii uu cunayay iyo wuxuu cabbayay hamadii uu gudan lahaa intaba ilaahay daraaddii buu daayay. daacadnimadiisa iyo ikhlaaskiisaa badan. qofka soomali 2 farxadood buu leeyaho mar waa markuu afurayo ama galab walba ama ciidda, marna waa markuu ilaahay ishortaaga subxaana wa tacaala ee uu arko waxa faraha badan ee miisaanka badan ee ilaahay uu ku abaalmariyey ee dembi dhaaf iyo janno leh. qofkan isaga ahi wanaagga uu ka leeyahy ilaahay agtiisa iyo siduu rabbi uga raali yahay, afkiisa waa u udgoon yahay. isaga dadka hareera jooga haba dareemeen inuu ur iyo wax uga soo baxayaan gaajada badan daraaddeed, laakiin ilaahay agtiisa aada buu udgoon yahay. miskigana waa ka udgoon yahay. bushaarooyinka soomka aynu soomayno aynu ka helayno waxaa ka mid ah taa uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. qofku hadduu bisha ramadaan soomo isagoo ilaahay abaalmarin kaga doonaya, wax kale aan u jeedin, isagoo rumaysan wuxuu ilaahay u ballan qaaday oo aan saluugsanayn,
dembigii horaa laga dhaafaa dembiga hore laynaga dhaafayaana wax sahlan maaha ooba intaynu ordayno waayo cid kaloo dembi dhaaftaa ma jiro waman yakfiru dunuuba ila allah ilaahay mooye cid kaloo dembiga dhaaftaa ma jirto waxaa markaa halkaa aynu ka fahamnay shaqadeena koobaad kol haddii ay taa tahay waa inuu kala duwanaadaa maalinka ramadaan iyo maalmihii kale aynu afuranayn oo ixtiraam gaara bay bishani leedahay ilaashi gaara bay leedahay aynu kula jeclaadayno si aqbalkeeda iyo ijaabadeeda aynu ugu dhowaano shaqooyinka inoo yaallo waxaa ka mid ah alqiyaam fi lleyl hadduu siyaamka ama soomku maalintii ahaa habeenkiina waa sara joog ilaahay daraaddii laysu taagayo waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay isu taago caabuda buu lahay idinka oo ilaahay isu dhuldhigaya oo adeecaya haddii soomka aynu ka kasbannay ama ka helay dembi dhaaf waxa isagana aynu ku ladhaynaa oo inoo raacaya dembi dhaafkaynu ka helayna habeenkii habeen iyo maalinba labada fursadood baynu ka wada faa'idaysanaynaa man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi waa xadiid saxiix nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka bishaa habeenkii cibaadaysta taraawiixdii iyo salaatuleylkii iyo isu taagaan dembigii horaa laga dhaafaa haddii ramadaan wax kaaga soo harhadheen kaasaa isagana lagu dhaafaya ilaahayna wuu ammaanay dadka habeenkii isaga caabudo oo wuxuu sheegay addoomihiisa dhabtaa inay yihiin magaca buu bixiye la ydhaha cibaaduraxmaan addoommaha raxmaanka macnaha raxmaddiisa helayaa wey wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaadabahum اljaahiluuna qaluu salaama wاladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama tilmaamahay leeyihiin addoommaha raxmaanka waxaa ka mid ah kibir ma leh dhulka deganaanshay ku dul maraan waa dad dulqaad badan oo kuwa liiteen lahayn cilmiga markay la hadlaanna way iska dhaafaan habeenkiina ilaahay bay isu taagaan oo ay is hortaagaan iyaga oo marna u sujuudsan marna taagan cibaadaysanaya xadiidkii saa'ib ibnu yaziid waxaa ku sugnaa dadkii naga horreeya saalixiintaa salafka la odhanayay habeenkii waxay ku cibaadaysanayeen ee akhriyayeen boqolaal aayadood oo suuradaha dhaadheer ah oo jusas dhowra noqon kara markay daalaanna waxay cuskan jireen usha iyo tukubaha ilaa waagu soo dhowaadana waa la wadi jiray habeenkii in loo soo jeedo cibaadada alle iyadoo ilaahay la hortaagan yahay subxaana wa tacaala oo qur-aankii maalintii la akhriyayay baa habeenkiina lagu cibaadaysanaya shaqooyinkay noo yaallaynu ku mitidayna waxaa ka mid ah sadaqa in deeqsinimadeenu korodho oo gacanteennu ay furnaato oo qof waliba wixii uu heli karayo ilaa waktigaa qaaliyahe lala raadsado ciddii u baahnayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya xadiidka ibnu cabbaas waxa uu ahaa buuhi dadkao dhan mid u deeq badan waktiga deeqdiisu sii badan tahayna wuxuu ahaa bisha ramadaan bishaa ramadaan buu weliba sii kordhin jiray marka uu malagu la kulmaya caalamka kore ay uga yimaadaan malaa'igta booqanaya sadaqada bishan la bixinayaana waxay leedahay siyaado ayay leedahay markaa waynu ku dadaalaynaa hadday dhar tahay iyo haddii ay dhuuni tahay dhinac kastaba waxyaabaha sadaqadaa waxaa ka mid a idcaamu dacaam raashinka bisil in la bixiyo oo dadkii soomanaa waxay ku afuraan aanay waayin hadday tahay cunno iyo hadday cabbi tahayba ilaahayna wuu ku ammaanaa qur-aanka dhexdiisa awliyadiisa iyo dadka muuminiinta ah agtooda laguma gaajoodo alla wuxu uhi wayudcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nudcimukum liwajhi اllah laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura inaa nakhaafu min rabbina ywma cabuusa qamdariira fawaqaahum allahu shara dalika اlyowmi walaqaahum nadraة wasuruura wajazaahum bima sabaruu jannaة waxariira suurat linsaan buu ilaahay ku ammaanay awliyadiisa wuxuu waxay siiyaan bixiyaan raashinka ayay siiyaan dadka mid qallalan iyo mid qoyanba masaakiintay siiyaan agoomahay siiyaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan ayay siiyaan gaajo cid kuma cadaabaan waxaanay caddeeyaan mowqifkooda oo dadkan inaanay ammaan ka doonayn laakiin ilaahay a ajri ka doonayaan subxaana wa tacaala iyo inuu ka raali noqdo ilaahayna wuu yeelo jannuu ku abaalmariyey iyo xariirteeda
xataa shardi ma aha qofku marka uu bixinayo raashinka inuu la raadsado un dadka baahane waxa uu siin karaa cid walba oo uu arka inay sooman tahay ama uu ka faa'iidaysanayo muslimiinta ka mid a tudcimu طacaama wa tuqri'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif dardaaranku nebiguina siiye waxa weeye cid walba waxbaad siin kartaa raashinka waad salaantiina waad fidinaysaa arrinta sida gaarka aynu uga sii faa'idaysanaynaa waxa weeye tafdiiru saa'imiin dadka sooman inaynu afurino waxaad ku afurinaysaa ayaanu badnaaninba afurkaaga qayb ka mida aada siiso haddii aada meel ku afuraysa meelo kale aada dadka ku afurin karto halkaad joogtiyo meelaha kaleba waxoogaa lacagood u qorshayso intaad istidaacadaada iyo awooddaadu ay tahay ayaad wax ku iibinaysa aada ugu talagelaysa wakti walba dadka sooman masaakiintii gaar baad waxu siisay jaarkii gaar baad waxu siisay laakiin kuwa soomanna gaaru si eego adigu ha isku dayin keliya inaad noqoto ka la afurinayo ama afur bilaasha raadsanaya laakiin waxaad isku daydaa ajri baad doonaysaa sidaa soomka ajriga uga doonayso dadka sooman afurintoodana ajri baad ka dooni nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxeixa waxa uu ku yidhi man fadara saa'iman kaana lahu midlu ajri gayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay qofka afuriya qof sooman wuxuu leeyahay kaa soomani ajrigu lahaa in la eg haddaad 10 afuriso haddaad ka badiso macnaa adigoo 10 cisho soomay adigoo 20 cisho sooman bay ka dhigatay qofkani soomkiisii ajri buu ka helay adiguna intii leeg baad ka helaysa marka waxaa laga yaabaa adigoo ramadaan sooma inaad 100 maalmood oo kalena soonto oo aad ka heshay dadkan kale ee aada afurisay qofkii soomana ajrigiisiina laga dhimi maayo buu ilaahay wuxuu ilaahay abaalmarin u qorayay qofkaana waxba ka naaqusin maayo ilaahay fadligiisa uu ballaarayay subxaana wa tacaala waxaynu ka faa'idaysanaynaa afraad alijtihaadu fi qiraa'ati alqur'aan qofkii yaqaanaa qur-aanka kariimka inuu ku dadaalo akhrintiisa oo uu badsado waa bishii qur-aanka ilaahay wuxuu soo dejiyey bishan dhexdeeda marka way isleeyihiin qur-aanka qiyaamka siyaamka soomka iyo sala joogga habeenka iyo qur-aanku way isleeyihiin waxaa lagu camiraya waa qur-aan sidaa daraaddeed ba asxaabtu ridwaanullaahi calayhim iyagoo nabiga ku dayanaya nebigu qur-aanku sii badin jiray waliba malaguu la akhri jiray malaku jibriil uu la subcin jiray marka asxaabtuna qur-aanka way kordhin jireen akhrintiisa cuhmaan ibnu cafaan waxaa la tilmaamaa qur-aanku aada ugu sahlanaa inuu 24 saacadoodba mar dhammayn jiray dhib kuma lahaa qofku waxaa laga yaabaa inuu 8 saacadood 7 saacadood ku dhameeyaba 30ka qur-aanka markuu mutqin yahay xaadib si fiican u yaqaano ibnu rajab alxambali imaamkaasi waxa uu leeyahay marka la yidhi qur-aanka 3 cisho wax ka yar yaan lagu akhriin waa in joogto laga dhigo wey laakiin meelaha fadliga badan iyo ayaamaha fadliga badan qirada inaad kordhisaa wax dhiba ma laha oo daliilka isdiidi maayaa buu leeyahy waxa shanaad oo aynu waktigeennan qiimaha badan ku qaadanayna aljuluusu fi lmasjidi xataa tatluca ashams salaada subax markaynu tukanno inaynaan firdhanin laakiin aynu masjidka sii fadhino ilaa intay qoraxdu ka soo baxayso wax badanna uma dhexeeyaan marka la aadaamo salaada subax ilaa markay qoraxdu soo baxayso waxaa u dhexeeya saacad iyo 10 mir haddii la aadaamay oo salaadii subax la sugay 20 daqiiqo way kaasii go-een 20 daqiiqana sunnihii iyo salaadii ayaa lagu jiray waxaaba laga yaabaa inay ku hadhan tahayba wax 20 daqiiqo meelahaas markaa ilaa intay qoraxdu dhulka ka soo go-aysa inaad sugto oo aada fadhido musta saacahaas nabigaana inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam fadliga laga helayo oo isaguna wuu samayn jiray oo wuxuu fadhihi jiray ilaa intay qoraxdu soo baxaysay si wanaagsan dhulka uga soo go-ayso masaajidku joogi jiray wuu wardiyi jiray waana inoo bushaareeyo waxau ihi man salla alfajra fi jamaaca qofka salaada subax jamac ku tukada hadday rabadaantii hadday bilaha kale tahayba uma qacada yadkuru llaha xataa tadluca ashams isagoo fadhiyaya oo masjidkii sii fadhiyaya ilaa intay qoraxdu soo baxayso uma yusalli rakcatayn kadibna 2 ragcadood buu tukanaya waa salaatu duxadii oo waktigeedii gaadhay kaanat lahu kaajri xajatin wa cumratin taama wuxuu helayaa ajriguu ka heli lahaa xaj iyo cumro dhamaystiran riwaayana waabay markaas
waxaynu halkaa ka fahmaynaa runtii taama wuxuu nabigu u celcelinaya calayhi salaatu wasalaam inaanay nuqsaan lahayn oo la saluugi karaynin fadligaa ilaahay u dhammaystirayo waa wakti kooban oo halkaan had iyo jeer aynu hurdadaynu ku cararnaa nafta wax kasta oo culaysahoo ay diidayso ajrigeeda ayaa ku jira haddaad aragta waxay naftu ka soo taagan tahay waa lagu rabeeyaa oo waa la qabadsiiyaa si ay u ogolaatood ajrigii u hesho waa arrin aynu odhan karno dadka intooda badan way ku adkaataa qofku markuu suxuurto ee uu cuslaado salaadiibuu dirqi ku tukaday kadibna wuxuu doonaya inuu hore u seexdo bal intaa iska sug si aad u hesho xajkan iyo cumradan uu nebigu ku bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam waxa lixaadoo aynu ku camiraynaa waktigeenna ramadaan ictikaafka bishii oo dhan aad ictikaafaysa maalintii iyo habeenkiiba masaajidada alla wuxuu yihi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarka waxba ha ka dayin oo hala ciyaarina idinkoo masaajidada ictikaafsanoo fadhiya markaa masaajid buu ilaahay sheegay waa masjid walba oo jamaca lagu tukanayo ramadaan iyo qeyrkeedba nebiguna calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan ictikaafkaasuu badin jiray 10 cishuu fadhihi jiray oo 10ka u dambeeya ah sanadkii uu dhintayna waabu kordhiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa qofka haddii duruuftu u saamaxayso iyadana inuu ictikaafkaa la yimaadaana wax wanaagsan weeye qofka sidoo kale dhaqaalo haysta haddii ay u saamaxayso duruufta iyo xaaladiisu waxa 7 sunno ah oo bisha ramadaan lagu camiraya inuu cumraysto oo iswaafajiyo cibaadada cumrada iyo siyaamka alcumratu ila alcumra kafaaratu lima baynahuma labada cumro inta ka dhaxaysana ilaahay dembigu ku dhaafa ramadaantiina wuu ku dhaafay salaadihiina wuu kaaga dhaafay isku wada darooyana waa la isku biirinaya si gaaluu nebigu u dhiiriyey calayhi salaatu wasalaam cumrada ramadaan ruux dumar oo la odhan jiray umu sinaan oo dumarkii reer ansaareed ka mid ah ayaa rasuulka u timi sala allahu calayhi wasalam sanadii 10aad markii uu xajka ka soo noqday markaa wuxuu ihi maxaad u xaji weydeed noo raaci weyday waxay tihi 2 neef un baanu lahayn oo neefna beertaa lagu sii waraabinayo neefna odaygaygiibaa ku xajiyey oo ku raacay gaadiid baanan haysanin tanuu siiye nebigu calayhi salaatu wasalaam taladaasoo keligeedaan ku gooni ahayn laakiin ummadda islaamka o dhan u taallo waxau ihi fa idaa jaa ramadaanu factamiri bisha ramadaan eegoo marka ay timaado cumrayso fa ina cumratan fiihi tacdilu xaja wa fii riwaayatin xajatan maci cumrada ramadaan uu qofku soo gudanaya xaj bay udhigantaa ama xaj nebi maxamed lala socday calayhi salaatu wasalaam markaa inahaas 7daas arrimoodoo waaweyn haddaynu isu geyno oo aynu garanno shaqooyinkeenna u muhiimsana bishan aynu ku camirayna inay tahay wax weyn baynu insha allahu tacaala horu marin doonaa wax weyn oo aynu la rooraynayna waynu iska reebi doonaa dunuubtiya qofkuna shaqadiisii adduunyada iyo hawlihiisii wuu iska wadanayaa diintiisi iyo dunyadiisaba si uu isu waafajiyo wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk aayaadkaasi waxay sheegayaan qofku adduunyadiisi iyo aakhiraba inuu kororhsado oo uu iswaafajiyo oo aanu u ciirin xagga adduunyada qura markaa talooyinkaas iyo tilmaamaha sharcigeenu ina siiyey markaynu la nimaadno calafkeennaa badanaya oo cimrigeennaa dheeraanaya oo waktigeenna aynu ka faa'idaysanaynaa oo waxaynu qabanay qiyaamaha waynu ku farxaynaa allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaila baila warzuqna ijtinaabah allahuma arzuqna tawbatan saalixa اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يا جمعة الأيام يا عيدا لكل المسلمين يا فخر كل الأتقياء يا قهر كل المشركين
جمعة الأيام يا عيدا لكل المسلمين